السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد عشر كنا وحير فالرالي قلنا كم بحنا بريها ما أنا سوق لين وحشرة أكاونت ما أنا سوق اليوتيوب وأنا خير عجيسي هذا دوني أنا حوجا دب خصوصية مركا هالك ما حكى الله يا داتا كلينينج حكت سيد الله نظيفيو kuwa horan ka hadla jiro kuwana kulay weysi kabayaan waxyaabo badan lagu sameeyaa marka waxaan doonayaa marka inaan wax yar dul istaago shan tilaabood oo kamida waxyaabaha la doonayo qofka data cleaning ka sameeynaya ama data analysis inuu sameeyo doonayo waxyaabaha laga baahan yahay inuu tilaabooyinka laga baahan yahay inuu qaado kow intuusan data analysis ka uusan sameynin yaa halkan ku qoran kow waxa weeye midda koowaad halkan haddii aan aado waxa igu qoran xog ba halkan igu qoran halkan waa tiradii le adiga tirada علشان serial number كما شاء الله لهاد أما لو يعني حدنا ووقت جي ساعدي تاريخ دي شقدنا لسمية معناها وحي مثلا يا حكم وحي مثلا سا قرال أو لقى سمينا يو قرش ما لا مثل قرش أما قراش في الصومال وكذا وماشى قوبت الجوارد اللي قد يعتروا ويان مركا وشقالها وحان مركا اسليه هي علشان تصالح waxaan ugu talagalay markii qof uu shaqeeyo shaqaalaha kamid uu gaari dayactiro inuu qoro kow tirada uu shaqadaas ay tahay sida maaragtay rasiidada laga gooyo maxay ahayd hoteelada ee lambar kale oo kale lambarka shaqada taariikhda uu shaqada qabtay LIC plate-ka maxay ahayd taariikhda gaariga loo shaqeeyay adeega uu qabtay maxay ahayd ma shidaala lagu shubay oo ama qaybaha shidaalka ma laga nadiifiyay ma taayarada laga hagaajiyay ama bareegyada adigu waa adeegyada nooca garasho ka baxa xaqana qofkan shaqadan qabtay ee shaqaalaha kamid ah makaaniga magaciisa halkan uu qoraya kana kala magaciisa BL la kana AL baa la dhahaa okay halkan waxa ii yaalo sidoo kale license plate-ka isagana waa un isla meesha oo kale isagana gaariga plate-kii muxuu ahaa registration-kiisa iyo shirkadda soo saartay gaariga Ford Toyota ma soo saartay iyo modelka gaariga halkaas ku qoran table-ka saddexaad waxa igu qoran adeegyada garasho ka baxo iyo qiimahooda halka igu qoran marka waxaan rabaa inaan isu keeno xogtan halkan ku qoran tan halkan ku qoran tan halkan ku qoran hal table intaan isugu keeno halka marka kadib analysis aan sameeyo intaas cashirkan koowaad aad kuma gaari karno cashirka xigu mataqaana aan ku dhameystiri doona laakiin qaybta hore halkan kaga bogan doona insha Allah marka cashirkan ku noqonaya halkan waxaan ku bilaabay marka duplicate values waxa la dhahaa qoraal soo noqnoqday oo isku nooc tusaale ahaan Ali Xasan Cabdullaahi Baqort Ali Xasan Cabdullaahi oo waxba istikaada oo maray waadi iska ilmaantay Ali Xasan Cabdullaahi kala hadda noqotay marka la soo noqdana Ali Xasan Cabdullaahi Baqort qof kale taa imaaday marka wara shaqada meesha ka sii wada dhahday Ali Xasan Cabdull ilaa afar jeer amal kala waa isla magaci leh ana waa wax soo noqnoqda qoraal soo noqnoqda noqda maaragtay weeyaan marka data analysis marka la sameeyo waxyaabahaas kale looma baahna inay ku jiraan waa in laga tirtiraa laga saara weeyaan kadib inta ka hor intaadan sameeyna data analysis-ka data cleaning-kay kamid tahay nadiifinta bay kamid tahay xogta la nadiifinayay kamid tahay marka taasaan aadayna xogteeni waatana waxaan isleena marka waxaan rabnaa inaan baarno wax soo noqnoqda inay ku jiraan qoraal ama xog soo noqnoqotay inay ku jiraan inay ku jirto yaan marka hore ogaanayna kadib haddii aan ogaano inay ku jirto waan ka saaraynaa waan masaxaynaa waan tirtiraynaa haddaba eeg marka qoraalka muska yari ilaa 30 weeyaan aad wada aragtaa 30 waliba marka xagga sare laga reebo qoraalka waa 29 camal weeyaan 29 gud waa iska fududiyay marka waxaan sameeynaa highlight aan ku sameeynaa highlight waa taqaanaa cashirka waxa lagu talgalay dad ay wax u bilaabeen sida lagu bilaabay marka highlight iyo waxaas inaad fahamsantahay oo garanayso aqoon u leedahay baan iska qiyaasaya sida markaad u highlight garayso waxaad tigaysaa home markaad tagto halkan aad tigaysaa conditional formatting qaybta yar ee godka qodaysaa kadib halkan aad imaanaysaa dhinaca midiga aad dhaqaaqaysaa halkan aad imaanaysaa maxaa ku qoran duplicate value waa waxyaabihii halkan ku qornaayeen eriga halkan ku qornaa weeyaan eriga halka ku qornaa wada ya duplicate value gaas weeyaan kaas weeyaan halkaas aad ka helaysaa marka waxaad leedahay home conditional formatting highlight sales rules and then duplicate values kaasa taabanaysaa hada oo tuujinaysa markaad tuujiso qaabkan uu kaaga dhigayaa oo qoraalka soo noqnoqda dhanba wuxuu ku saarayaa gaduud kalarkaas uu ku saarayaa kalarka wuxuu ka gaduud oo inoo dhawaa ma jeclaan waxaan ka dhigayaa green ka dhigaa okay baan leeyahay marka ka dhigayaa cagaar markaan cagaar ka dhigo kadib waa
markuu sidaa kugu highlight garay marka wuxuu ku tusinaysaa inuu qoraal soo noqnoqdo meeshan ku jiro qoraalka markuu soo noqdo kuley leenkan oo idil tusaale ahaan leenkan oo idil ilaa halkaas haddii mar labaad inta lagu soo celiyo isku wada mid ay noqdaan kaasaa waxaa la dhahaa duplicate value laakiin inta hadday iskaga mid noqdaan xaggan ay ku kala dugan yihiin ama intay ku kala dugan yihiin duplicate value ma noqonayaan okay marka maadaama uu na tusinaya marka waxaan leenahay ka saar haddana marka uu na tusiyey oon dareennay inuu ku jiro duplicate value wixii duplicate value ka tirtiran leenahay oo waan amrayna marka waxaan leenahay halkanaan tegaya data markaad tagto halkan waxaa ku qoran remove duplicate ka saar qoraalka soo noqday halkaasaan taabanaya kanta taabto qoraalkan waa inuu sida hadda tiiga u saaran yahay tiiga wada saarnaada dhammaantooda waxaa tiiga halkan saaran uu ku tusinaya waxaa weeye headaska work orderga request on lic blade kuwaas weeyaan xagga sare ee tableka madaxiisa kuwa ku qoran ku saaray haddii aad ka qaado tiiga saari waayo oo ood saari weyso faraha ka qaado tusaale ahaan halkan taabanaya my data has headers haddaa ka qaado wuxuu noocaan noqonaya marka inaad saartaa la rabaa halkaa inay ku saaranta labaad iyo jeer haddaad ka qaado waxaa weeyaan wuxuu ku darayaa qoraalka soo noqnoqday ku darayaa kuwana marka waxaa dhici karta inaad wax halkan ku qortay wax halkan qortay isku mid ay yihiin hadduu kaa saaro kaa tirtiri ka waran ya waad ku cabaysaa kanaa la rabaa marka inuu check yahay kaas tig aa siinaysaa saas inuu check u yahay la rabaa check kadib kuwana wuxuu wada saarayaa tigaas wada saaraya kadib waxaan leeyahay okay oo fasaxaya markaan fasaxo ogeysiiskaas uu meesha soo saaray wuxuu leeyahay laba duplicate laba qoraal soo noqnoqda meesha laga saaray oo halka ku jiray yaa meesha laga saaray 29 ay ahaayeen 27 waan isku ekeeno kala jaan ah oo ku soo haray oo nadiif marka okay leeyahay mahadsantahay okay marka hadda waan nadiifinay waxaan ka nadiifinay qoraal soo noqnoqda inuu ku jiro qoraalkan oo kale uu iska yaraa waa ilaa 30 le uu iska ahaa 29 uu iska ahaa ka waran markuu malaayiin uu yahay oo kale marka waad garan kartaa qaacidada noocan oo kale tahay inay fududaynayso shaqada inay ku fududaynayso oo muxuu ahaa si fudud aad fiir waa ilbiriqsi aad ku bogi kartaa laakiin haddii ay noqon lahayd ka waran inaad mid u fiiriso dhibaatada ay leedahay marka qaacidadana sidaas ay muhiim u tahay kadib intaad markaad dhimaato colorkan si uun adiga ay kula tahay u saarin tusaale ahaan intaad highlight garayso kale lightka ka qataa dhihin ma dhihi kartid waayo colorkan waxa meesha loo saaray waa amar qaacido yaa lagu saaray meesha qaacidadaas inaad saartaa la rabaa marka qaacidada waxa lagu saaraya marka halkeena ku noqonaya home waxaan tagayaa conditional formatting waxaan tagayaa clear rules kana tagayaa ana sharciga meesha yaalan soo geliya hadaa colorka aan ku saaray kaba saar hadda leeyahay marka halkan aan imaanaya ka saara leeyahay ka saaraya laakiin hadda fiir ka muusan saaran sababtu waxa way ma aanan highlight gareyn inaan highlight gareey waan waan highlight gareynaya sidaasan u highlight gareynaya kadib waxaan tagayaa home conditional formatting clear rules haddu ka saaraya marka qaabkaas kaga saaraysa so stepka koowaad waan bugnay duplicate values on ka saarnay qoraalkii wax xarfo ku soo noqdo ama qoraal soo noqdo ma laha kadib waxaan aadayaa spelling mistakes ama hubin inaan hubino qaladaadka xagga hingaada ee ku jiro muxuu ahaa xogtan meesha ku qoran laakiin taa waan usoo laabanayaa waxaan hadda u gudbayaa maxay ahayd inaan baarno qoraalka meelaha ay ka maqan yihiin meelaha bannaan ee xogta ay ka maqan tahay aan rabaa inaan la tacaalno marka halkan aan imaanaya way iska caddahay halkan oo kale fiiri way qodanta godkan waa faaruq kana waa faaruq macnaha waxaa waaye shaqadan oo kale shaqadan ninkan ku aadan hadda fiiri shaqadan waa la qabtay taariikhdan la qabtay gaariga waa ka loo adeegay waxyaabaha hawsha loo qabtay waxay tahay heeradii wax laga bedelay shaqada waa la qabtay lacagta waan qaatay company lacagta waa qaatay company garashka waa qaatay lacagta laakiin qofkii sameeyay shaqadan ee shaqaalaha kamid ahaa meesha ka maqan marka data analysis marka la sameeyay waxa waaye boos banaan hadduu xogti boosas banaan sidan oo kale ay leedahay data analysis lagu ma sameyn karo hadda sameysana go'aamo faham badan kama helis wax badan oo akhbaar ma gudbinayso marka inaad buuxiso la rabaa in la buuxiyo la rabaa meelaha banaan qaab lagu buuxiyo jira waxa lagu buuxiyaa قاعدة له محوها قاعدة له if statement كان وحوين معه ومسكحيا وحيابه ومالين كستا أنكو هذا النوعيان وما ركتي وقال هذا نوع يربونبونين if statement كي وحاوي تسالعان وحاويان المرحلة ذا جرتا مرحلة زمر كي جرتا محل وحل ناس محل حاجة يلا سمين كرا تسالعان قاجة يهسو هي قاجة دكوز محل مر so what عمل يا عنتر راتسو أوكي هي قاجة ما هسو قاجة دكوز إن ديسك جو وعنكاس فهمسا
rooba da'ayo tusaale ahaan rooba jira marxalad baa jirta rooba da'ayo sama so what hadduu roob da'ayo macna dallada u baahanahay de roob ma da'aya maya maxaa iska joogde waa caynkaas adigu markaan gudaha si fiican u galna ogaantada formulaga ama qaacidadana noocan waaye waa lamid if bilfur x is equal to y noocan waaye macnaheedu waxaa waaye haddii x uu la mid noqdo y macnaha haddii xaaladda ay tahay xaalad roob dayay oo kale ya waqtigan aan joogno haddii uu roob dayayo then dallad baan u baahanahay dentaas maxaa dallad baan u baahanahay hadduusan roob da'aynin oo x is equal to y uusan ahayn macnaha uusan waqtiga hadda aan joogno uusan roob dayaynin then macnaheedu waxaa waan iska joogaynaa else macnaha maxaa kaloo samaynaynaa waxdii waa iska joogaynaa iska uma baahnayn dallad qaacidadan si fiican u fahmi markaan ugu noqono marka halkan aan imaanaya qaybtan aan buuxsanaya qaybtan aan isticmaalaya qaybtan si aan if statementkaas u geliyo marka waxaan leeyahay halkan aan tegayaa qaacidada maxay ahayd equal if then taabaan iska taabanaya halkaan markaa marayo logic yar uu siinaya oo qaacidadu halkaa iga siinaya kadib waxaan leeyahay waxaana halkan aan ka bilaabaya godkaas waxaan leeyahay excelon sheegaya godkaas hadda aan tuujiyey haddii uu la mid yahay laba speech mark noocaas aan samaynaya macnahooda waxaa waaye haddii space u dhexaynin waxa kuma jiro everywhere macnaha waxaan ka wadaa excelon sheegaya exelo godkan hadda aan tuujiyey e2 hadduu la mid yahay ever oo aan waxba ku jirin uu faaruq yahay waxaad iigu qortaa ood iigu bedeshaa ood ii gelisaa godkaas 100 qaabkaasaan u qoraya exelo sheegaya waxaan leeyahay if haddii exelo godkan hadda aan tuujiyey a2da ah haddii uu ever yahay waxba ku qornayn oo faaruq yahay 100 iigu bedel hadduu faaruq ahayn oo wax ku jiraan ka waran wax ku qorin sida hadaba ay ugu qoran yihiin maxaan samaynayaa faraha ka qaad sidiisa iigu daayo waxaan samaynayaa waan ku celinaa mar labaadaan tuujinaya macnaha labaadaad saa u tuujinaya sidiisa iigu daa haddii wax ku qoran yahay sidiisa iigu daa laakiin hadda wax ku qorneen 100 iigu bedel waxa instruction wuu qabaa excel markaa wuu qabaa waan siiyo oo muxuu ahaa amarkii waan siiyey intaba dhawa fasaxaya excel mar muxuu sheekada uu dhageysto waa fahmay faragta uu fahmay hadday wax ku qoran yihiin waxaan iidaa sideeda iigu daa dee wax baa ku qornaa bl ku qornaa sideeda iigu daayay laakiin hadday wax ku qorneen maxaan 100 iigay balaan aragno marka halkaas markaan joogo marka formulagan halkan ku wada koobinaya halkan aan imaanay double click aan leeyahay markaan siiyo marka waxaan eegaynaa boosaska ku toosan boosaskii banaanaa eberka kanoo kale fiiri muxuu ku bedelay 100 kan faaruq ah muxuu ku bedelay 100 kan faaruq ah muxuu ku bedelay 100 inta kale sidoodu ku daayay leen waxba ku jiray mid allaale midii wax ku jirto sidoodu ku daayay midaan wax ku jirin maxay ahayd halkaas 100kaas uu ku geliyay kadib marka waxaa la rabaa column kana la rabaa inaad qaadato halkan geysatay leen kan faaruq ah waxba ku qorqornaa moogtaa kan laba fursad aad leedahay marka kow inaad kan iska qariso inta halka tagto right click inta dhahdo aad hide dhahdo kadib kan aad isaga dhex qorato mechanic magac markaa ka qorto sidaas ku dib laakiin disadvantage uu leeyahay waxa weeyaan la magacyadan markaan qoraynay qaacidaan ku qornay qaacidadii markaa halkan tuujiso kale waxa qaacidadii kor bay ku soo qormaysaa qaacidada meesha mar haddii qaacidada ku jirtana waxa waaye way ku dhibaysaa hadhow markaa isticmaalayso waxyaabahaas ama copy iyo paste aad ku sameynayso ku dhibaysaa marka that's the disadvantage waxaa sameynaysaa waan ka noqonayaa back aan leeyahay waxa kala sameyn karto marka ugu fiican waxa weeye inaad kan copy intaad halkan ku base garayso isagana intaad qaadato inta ku bedelato waxaan sameynayaa highlight come right here waxaan leeyahay right click copy aan leeyahay intaan imaanayaa marka halkaa imaado right click aan dhahayaa right click copy paste halkan ma taabanaya markaa okay paste aan sameynayo copy markaan dhaho paste aan sameynayo waxa waaye special halkan imaanaya waxaa ku qoran base special markaa base special kaas haddaan dhinaca midiga u dhaqaaqaysaa halkan maxaa ku qoran values ku soo qormay fiir markaan qalinka saaro values okay kaasaan click dhahaya markaas sidaa igu bedelayaa kan ee hadda aan koobistay ee meesha kusoo harayna waan iska tirayaa markaa okay delete and asalaam waa diyaar hadda marka hadaad fiiriso kan fiiri qaacida ma wato mid walba sideedii ugu qoran tahay lambarkii ma ku qoran ama xarafkii ku qoran meesha bis asalaam okay inta kale tan rabay inaan sameeyo waxa weeye xogtan waxaa xigo convert data waxa la convert data xogtii inaan bedelaan rabnaa nooc ay ahayd nooc kale aan ka dhigno waana muhiim marka qaar hadda taariikhda oo kale fiiri qaybtan taariikhda oo kale markaad fiiriso
taariikhdan wax badan kama haddaad sidaa u fiiriso durbo wax badan oo kama fahmay sidoo fahan fiican kama samayn karta isla markaa because taariikhdii xitaa ma wada hal sanad ay wada yihiin mise sanado kala duwan wixii dhan adigu micno fiican kama samaynay sidoo waa way kaa qarsoonta marka waxaan rabaa inaan u bedelo taariikhdan ayaamahoodii saxda ahaa ay ku aadanayeen inaan ku bedelo marka waxaan rabaa columnkan iyo columnkan dhexdooda inaan mid kala gashado marka kanaan imaanayaa right click and right click markaan saadan iyo halkan ay soo geli then waxaan ku qoranayaa weekdays aan ku qoranayaa weekdays waa maalmihii asbuuca ku jiray then halkan aan imaanayaa qaacidaan isticmaalaya marka qaacidada waxaa waaye waxaa la dhahaa text to column maya convert to text la dhahaa what the fuck am I talking about okay قاعدين استعمال convert to text okay text أنا بدليها وحواية ديت كي أو ترى ذاها إن ترى نوع عن هاد أيام محيطين التاريخ دي يساعد كل بقوليا وهذا ترى ده منطق مركون بدلها text قاعدة لو بدلها قاعدة ده كون بدلها استعمالها إنه حاله convert to text وكان قاعدة فورمولا نوع اسمه بقوليا دي ده صار كذا وحواي day واي معناها مالنا نبدلينا أيام بنبدلينا هذا year وبدله زي مثلا واي قرنسة هذا week وبدله سو دولي قرنسة أنا قابنا بدلنا حسمينا مركا equal لي equal مركا دو text نقولها text مركا نقوله because we're changing لما برا أنا حب بدلنا text tab بس كتابني كدي بهالك أنا كبلاوي كان يبدلنا لي تاسا كبلاوي B2 هي محدي يبدل زي text وعليه كوما then speech marks double دي سد حدث هو أفرت دي مقارنة okay then بال حربان سمعنا كدي إنت ليه وكا وحود هاي تاريخ دن هالكم كو قرن يمعلت ساعدا وحدا وفرايدي جمعة أيام تدوا جمعة لأن هالكنا لما أنا دبل كليك عليه دبل كليك لما أنا محن كديك حن نقدر مركا وكا أيام مد قلبي يا أيام تديو توسك وهجاكتي وكا قاب كسر وهجاكتي مركان فيري هذا كان تيهر وكفي عنتاي كان هل إنده مركان صاروا مري وحن وجانا يا قميصتي إن شقة وبدنات فيري يا قميصتي أنت شقة لقبت فيري وبدنتها أحدي فيريا أيام قارنة بكجرين بس ستدي وكلنا لا شقينين ساندي أو خلت فيري هل ساندي نجستنا مالنا يا Wednesday مركا immediate decision كسمين كرام أنا decision فضل بني إسلام مركز بكسمين كرام وأنا فضل هاي أتجلس مركا 10 خلاص نكسو جوجين السلام عليكم قيبتي سحكتة 10 كحيلان كقادن دونا فضلا هديات كهشي لايك كتابو بيتكن واموتك لايك كتابو أدوغنا سبسكرايب جرى سيادو هش 10 هذا حاجة سو صعدة كومنتين هالكا كقردي حداد كهش وان كهلا وما شاء الله دقدقني وحيابا كلا هداد سليادة هاي وان أدوغ جعيشة هزليادة إن أتربط إن لسوقي ليو وعشرة كلا وحيابا كلا كسابسونا إكزالا سوشي غايو نفتر كوضو 10 كسو سمينا وانسوقي لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته